حيكسعوتا صلو قول مايسي سنانيو ولا ليمو أكل سرينشيري طماتيو وناكا صومالي لكو عانتاهي صومالي لصوضع شو سمادا بشيريو إدقا حيكسعوتا صلو قول مايسي سنانيو ولا ليمو أكل سرينشيري طماتيو وناكا صومالي لكو عانتاهي سعودكود أوكولا خففان عداوكم تعيدة الكودي صومالي لكو عانتاهي إذا سياحة جيدو تتقوي كفارو حدودها سقايو سوحنكي عرفتida سعودكود أوكولا خففان عداوكم تعيدة الكودي صومالي لكو عانتاهي madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hogaaminaya markay soo gaareen madaarka magaalada Abu Dhabi waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Isutaga Imaaraadka Carabta qadar nasasha ay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxda ka socotay Isutaga Imaaraadka Carabta ku wada qaateen qolka VIP-da ee madaarka iyagoo qadarkan nashashadaana ka wada hadlay isxoguraysi ku saabsan xiriirka labada dal ay leeyihiin iyo halka uu marayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigiisa waxa loo galbiyay qasriga laga dajiyay magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta iyagoo lagu galbiyay baabuurta loogu talagalay hogaamiyaasha dunida ee soo booqda dalka Isutaga Imaaraadka Carabta سفيرك Soomaaliland u qaabilsan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta Ambassador Baasha Cawil Cumar ayaa sharaxaad ka bixiyay socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku soo gaaray dalka Isutaga Imaaraadka Carabta iyo inta uu joogo kulamada uu la qaadan doono mas'uuliyiinta dalkan ka arrimisa farxad weyn maanta noo tahay inaan ku soo dhaweyno dalka Imaaraadka magaalada madaxdiisa Abu Dhabi wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi muddada halkan joogaan madaxweynuhu waxa uu la kulmi doonaa madax ka tirsan dalka Imaaraadka oo ka mid yahay Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan iyo Mohammed bin Zayed Al Nahyan cilaaqaadka ka dhaxeeya dalka Imaaraadka iyo jamhuuriyadda Soomaaliland waa cilaaqaad soo jireen oo taariikh fara badan leh dabcan muddada uu joogo madaxweynuhuna waxa ay madaxda labada dal ka wada hadli doonaan xiriirka soo jireenka iyo sidii loo xoojin lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi safarkan uu ku yimid dalka Isutaga Imaaraadka Carabta waa safarkii saddexaad ee uu dalka dibadiisa ugu soo baxo isagoo hore safar dibadeed ugu baxay dalalka Soomaaliland jaarka la ah ee Djibouti iyo Ethiopia socdaalkan madaxweynaha Soomaaliland ku soo gaaray Isutaga Imaaraadka Carabta waxa ku welinayay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda Dr. Saad Al Shire qorsheynta qaranka Cawaale Ibrahim Shirwac horumarinta biyaha Saleebaan Cali Koore xiriirka golayaasha Maxamed Aadan dhalinyarada iyo ciyaaraha Boos Mire Maxamed iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID Injineer Faysal Cali Waraabe Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Abu Dhabi ee Isutaga Imaaraadka Carabta